وقيب كم إذا شك يكون هابين يا هابين وحصوت رجل عبد الرحمن أنتانو وحنسوق بنية عن جواه أيانلي الشيكدي بدماحي سنتباد يتضبط سفر هربح الشيكدا شهرزاد وحي هذا الكذا كوب لوضي وحي سوق أرتي بقر كيجيو إن وقتي خليف كمير المؤمنين تا هارون الرشيد وجري كنا نولا مجالة من لا يراهدو سنتباد الحمال وحمالي أها waxa uu ahaa mid faqiir ah oo noloshiisa oo dhan ay ku tiirsan tahay madaxiisa iyo wixii uu ku qaado wuxuuna ahaa mid sidaas nolol maalmeedkiisa ku dhacsada maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in uu soo qaaday alaab aad u culus waxayna ahayd maalin kulayl daran uu jiray in cabaar ah markii uu culayskii waday ayuu daalay xamaaligii kulaylka iyo dhididkiina ka batay markaas ayuu wuxuu soo agmaray guri uu lahaa nin ganacsade ah wuxuuna uu albaabkii gurigii waxauna albaabka gurigu ahaa mid hal qabow leh neecaw ka soo baxaysay markaas ayuu wax maaligii bartii alaabtii dhigtay si uu xooga ugu nasto uguna qabowsado hal cabaar ah markuu meeshii fadhiyay ayuu wuxuu dareemay neecaw aad u macaan iyo cod shimbiro meel asaga u dhow ka qaylinayaan haddii uu sii fiiriyay waxay noqotay beerta guriga ganacsadaha ku taala markaas ayuu xamaaligii meeshii soo galay wuxuuna arkay beer aad u weyn waxaana dhex joogay wiilal iyo adoomo badan wax kasta oo beer looga baahan yahayna beertaas way lahayd wuxuuna isdhahay beerta noocan ah kullay qof aan boqor ahayn ma lahan kadib waxaa xamaaligii soo gashay carafta raashin la diyaariyey taasoo caraf daraadeed beerka kaala baxaysa xamaaligii wuxuu fiiriyey meesha ay ka timid carafta cuntadan wuxuuna arkay miis weyn oo lagu diyaareeyay nooc kasta oo cunto iyo cabitaan ah markaas ayuu inta uu la yaabay dhahay allah ayaa ceeb ka hufan allihii wax abuuray waxna arsaaqay qofku doono xisaab la'aan ayuu arsaaqaa ilaahu waxaan ku weydiisanayaa dambi dhaaf iyo inaad ceebteeda asturto adiga qaadir ah oo xakiim ah waxa doontidba waad fashaa ma jirto cid ka awood badan kaana maamuli og waad u nimcaysay qofka doonto oo adoomadaada ah qofkii halkan leh waa qof nimco oo dhan loo dhammaystiray waxaad siisay nooc kasta oo nimco ah ha ahaato cunto cabitaan udug iyo labisba allow adigaa fal suuban oo adoomadaada xukumisay qaar weyn faraxsan yihiin qaar weyn nimcaysan yihiin qaar aniga ayay ila mid yihiin oo waa kuwa daalan aadna u liita kadib halkii ayuu gabigan ka tiriyey mid kasta oo xun misna raaxo haysta waxaa khayr iyo raaxo u hoos waxaana noqday mid daal dareemay arrinkaygana waa cajiib daalkanu iga batay qayrkayga way faraxsan yihiin dhib la'aan dhibkan ku jirana qof ku jiro adduunka sooma marin dhammaanteen waxaana laga abuuray candhuuf laakiin waxaan nahay kuwo kala duwan markuu dhameeyey ayuu soo baxay in cabaar ah markuu sii socday ayaa waxaa gacanta qabtay wiil aad u yar wuxuuna ku dhahay kaalay oo guriga soo gal lana hadal sayidkayga wuu kuu yeerayaaye markaas ayuu sindibaad xamaali damcay inuu iska tago haddana wuu iska dhaafay wuu soo laabtay isagoo alaabtii cuslayd wata ayuuna gurigii soo galay markuu gurigii soo galay ayaa wuxuu arkay guri aad u qurux badan si heer sarena loo xardhay isla markaasna aanan wax buuqa lahayn asaga dhan jawi degan oo xasiloon yahay shay kasta oo qurux badan guriga waa lagu sharxay wax kasta oo macaana waa la dhigay nooc kasta oo cabitaan wad ka helaysaa intaas waxaa u sii dheer gabdho jaariyad ah misna aad u wada qurux badan ayaa guriga joogay kuwaas oo aad quruxdooda la yaabayso wuxuu u tagay ninkii guriga lahaa oo ahaa nin xooga da'ah dhinacyadana ciro ku leh muuqaal ahaan aad u wanaagsan waxaana ka muuqatay haybad iyo xasilooni markaas ayuu xamaaligii isdhahay wallaahi meeshan waa meel boqortooyo adigana guri boqortooyo ayaad dhex joogtaa kadibna wuxuu salaamay ninkiisa ixtiraam leh waxaana lagu dhahay fariiso xamaaligii wuu fariistay waxaana loo keenay cunto uu cuno kadibna wuu cunay ilaa uu ka dhargay kadibna inta uu faraxashay ayuu yiri alxamdulilaahi calaa kulli xaal markaas ayaa waxaa la hadlay ninkii guriga lahaa wuxuuna ku yiri soo dhawow maalinkanna ku wacnaado ee magacaaga inoo sheeg waxaa kale oo aad ii sheegtaa waxa aad ka cabanayso wuxuu xamaaligii ku jawaabay sayidkii magacayga waa sindibaad alxamaal waxaan alaabta ku qaadaa madaxayga si aan xoogaa yar oo lacag ah oo aan ku noolaado uga helo
markaas ayaa waxaa dhoolla cadeeyay ninkii guriga lahaa wuxuuna xamaaligii ku yiri waxaad ogaataa inaan labadeena isku magac nahay aniga waxaan ahay badmaaxii Sindibaad ahaa balse xamaaliyo ujeedka aan halkan kuugu wacay ayaa waxay tahay inaad maqashiiso tixdii gabayga ahayd ee aad tirisay markaad albaabka gurigayga hortiisa taagnayd markaas ayuu xamaaligii xishood dareemay wuxuuna dhahay ilaahan kugu dhaariyay hay qaban waayo daalkii iyo rafaadkii iga muuqday iyo kasta yar ee aan haystay ayaa iga keentay waayo wax yarida insaanka waxay bartaa adaab darri markaas ayuu badmaaxii Sindibaad ahaa yiri waxba ha xishoonin waayo waxaan ahay walaalkay waxa tahay walaalkay oo kale ee tixdaas iigu soo celi waayo albaabka gurigayga markaa taagnayd oo aad tixdaas tirinaysay aniga aad ayaan uga helay ee mar kale iigu soo celi markaas ayuu xamaaligii tixdii gabayga ahayd mar kale ugu soo celiyay waxaana aad tixdaas gabayga ula tacajubay Sindibaad wuxuuna xamaaligii ku dhahay waxaad ogaataa inay soo martay qiso cajiib ah waana kaaga warrami doonaa wax kasta oo aan la soo kulmay ka hor intaan farxadan ku noolaanin iyo noloshan macaan ogow noloshan macaan waxaa ka horeysay nolol rafaad iyo dhib badan kuwaasi aadan xitaa qaarkood weligaa ku fikirin inaad la kulmi doonto waxaana waayaha adduunyada kala kulmay wax kasta oo rafaad ah anigoo intaan noolaa galay 7 safar mid kasta oo ka mid ah 7daas safarna wuxuu leeyahay sheeko xitaa fikirkaaga ka yaabinayso laakiin dhammaantood waxay ahaayeen qadarta iyo doonista Alle meel looga cararana ma aysan jirin mid ayaan kaaga warrami doonaa safarkii koowaad jasiiradii dhaqaaqday iyo fardihii badda wuxuu hadalkiisa ku bilaabay waxaad ogaataa xamaaliyow aniga aabahayga wuxuu ahaa nin taajir ah oo ganacsade ah wuxuuna ka mid ahaa dadka kuwooda ugu maalka badan laakiin wuxuu geeriyooday aniga oo aad u yar wuxuuna iiga tagay hanti fara badan sheekadu waxay halkaa inooga sii socon doontaa maalinta dambe